gudoomiyaha koowaad ee golaha shacabka ahna kusimaha gudoomiyaha golaha shacabka gudoomiyaha maxkamadda sare xildhibaanada labada aqal ee sharafta leh gudoomiyaha gobolka banaadir iyo howlwadeennada gobolka golaha wasiirada taliyayaasha ciidanka qalabka sida iyo sarreeyayaasha gobolada horseed ee xoogga dalka Soomaaliyeed gudiyada dhalinyarada Soomaaliyeed oo meelo kala duwan nooga yimid iyo marti sharafta kale oo caawa nagala soo qayb gashay munaasabadan waxaan ku salaamay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ilaahay baa mahad iska leh oo noo suurtageliyay caawa inaan halkan isugu imaano munaasabadan qiimaha badan waxaan rabaa oo kale inaan u mahad celiyo dadka noo soo qaban qaabiyay munaasabadan aadka u qurxoon waxaa sharaf noo wada ah inaanu xuseyno caawa munaasabadan oo ah sanad guuradii 78aad ee ka soo wareegtay aasaaskii xorriyadoonka ee SYL waxaa farxad inoo wada ah kulligeen oo ah inaan xusno munaasabadan oo aan ka hadlayno taariikhda halgankii dheeraa ee 13kii SYL ay soo mareen oo xaqiiqatan naga mudan duco badan iyo sharaf iyo inaan barno jiilka naga dambeeya halgankii dheeraa ay soo mareen allah u naxariistay 13kaas iyo horseedkii guud ee SYL halgankaas oo kale oo taariikhiga ah oo runtii Soomaaliya meel hoose ka soo qaaday oo adduunka ka sarmariyay khaasatan Afrika maxaan ka baran karnaa maxaa ay ku gaareen muddo 17 sano ah Soomaali inay mideeyaan oo ay wadaniid geliyaan oo qabiilka ay ka fogeeyaan oo dawladnimo ay u keenaan oo dimuqraadi ah runtii dhalinyaradaasi waxaa la yiraahdaa aqoon ma lahayn anu ma aaminsani dhalinyaradaasi waqtigooda waa ka soo hormareen dhalinyaradaasi waxay yimaadeen waqti dadku runtii inta badan Soomaalidu ay reer guuraa yihiin haddana aan aaminsanahay dadka hadda jooga inay ka hormarsan yihiin maxaa yeelay ilaa hadda waxaan gaari laanahay levelkii ay ummadda Soomaaliyeed gaarsiiyeen dhanka wadaniyadda waxay ogaadeen markii la sameeyay 15kii May 1943 oo saan sheegay laga joogo muddo 78 sano ah waxay arkeen gumaysiga Ingiriiska iyo Talyaanigu inay ciidanna la yimaadeen xoog leh iyo hub casri ah iyo dhaqaale fara badan intaas waxa uu heliyay inay barteen dhaqankii Soomaaliga oo si ay u xukumaan una controlaan inay barteen saa u kala qaybsannahay qabiilaadkaan nahay intaas kaliya ma ahee firqooyin waxaa jiray xarakaadyo oo islaami ah oo iyaga naftigooda tartan ku jiray laakiin nabad ahaa laakiin tartan ku jiray marka gumaysigu wuxuu ku guuleystay sidii ummaddaas una u qaybin lahaa una xukumi lahaa dhaqankeenna oo miyiga ah oo qabiilka ku dhisanna u noogu xukumi lahaa iyagii marka si ay uga qaadaan ummadda Soomaaliyeed ee xeriyada gumaysiga oo ay ka xoreeyaan waxay fakareen inay keenaan afkaar ay kula dagaalamaan gumaysiga ayna Soomaaliya xorriyadeedii iyo sharafkeedii iyo karaamadeedii u soo celiyaan waxay la yimaadeen wadaniyad hadda nin reer miyi ah ma garan karo wax wadaniyada ninka reer miyiga wuxuu yaqaanaa qabiilku wuxuu yahay oo uu isticmaalo difaac uu isticmaalo waa ognahay qabiil wax ma dhiso qabiil wuxuu dhisan yahay inuu isdifaaco uu dagaalamo nolosha ay ku nool yihiin ay ku maareeyaan xaaladda markaas jirta oo markaas jirtana maxaan ku raahdaa lagu xakameeyo laakiin wax midnimo ah wax horumar ah wax dhismo ah kama shaqeeyo marka waxay keeneen wax ummadda Soomaaliyeed ku cusub
oo yiraahdeen wadaniyad patriotism ee keeneen waxay keeneen wax la yiraahdo midnimo yee keeneen xaqiiqatan say ahayd ilaah baa yaqaana iyo runtii skillkooda farsamadooda dadkii waa geliyeen ay tuseen inuu jiro qabiil wax ka wanaagsan oo ummad Soomaaliyeed mideyn kara oo walaaleyn kara waxay gaarsiiyeen shacabka Soomaaliyeed waxay gaarsiiyeen inay ka xishoodaan inay afkooda qabiil ay ka soo baxdo marka dadku isku mid maaha dad waxaa jira markaas cusub oo afkaarta SYL aanan ku baraarugsanayn ama aanan aaminsanayn ama uu ku yar yahay ama aan fahamsanayn waxa ka soo fakaraysa marka qabiilku wuxuu rabaa inuu ogaado dadka la jooga qabiilkoodu rabaa inuu ogaado xitaa qofkaas ku cusub ideology-ga ama afkaarta rabana inuu ogaado dadka jaalkiisa ah inuu ogaado wuu ka xishoonaya inuu qofku yiraahdo yaata reerkeeta waa ka xishoonaya wuxuu leeyahay war x yaad ahaan jirtay waagii hore qabiilkee ka dhalatay marka waa la iskaga sheegi jiray si qalbigu ugu hagaago inta uu la qabsanayo afkaarta iyo fikradaha SYL-ka saasay tahay meel walba waxay gaarsiiyeen Soomaali meel kasta ay ku nooshahay degaan walbaba fakarkii waa gaarsiiyeen iyagoonan gaadiid haysan macnaheedu waa dad lugeynaya hayeen marka oo lugta ku socda telecommunication ma jirin telefoon la isu dirana ma jirin saasay tahayna dadku waa wada qaateen fakarkii waa qaateen kulligoodna waxay ka mideysnaayeen in dalka laga xoreeyo gumaysiga Soomaaliyana ay hesho xorriyadeeda ay noqoto dawlad complete ah oo taam ah dimuqraadi ahna runtii aan u duceeyno faataxan aan u marno ilaahay inuu 13 kaas iyo howlwadeenadii guud ahaan iyo horseedkoodii intii dhimatay ilaahay inuu jannada geeyo faataxan u marno waxayna gaarsiiyeen in Soomaali kaligeed aysan ku ekaanin halgankaas oo halgankaasi uu faafo Afrikada kale uu faafo halgankaas oo ah self determination in la xoreeyo wadamadaas kale oo wali ku dambeeyay gumaysiga waxa ay la kala dhaxlay dawladihii soo jiray 30 sano aan haynay dawladnimada Soomaaliya haysatay waxay dhaxashay in aan noqono codka kaliya ee leeyihiin dad yooga dulman ee adduunka ku nool bacdama fakarkaasi uu ka yimid fakarkii SYL-ka uu ahaa oo gumaysidiidka ahaa annagoo marka dhaqaale badan haysan oo faqri ah laakiin dadkeenu midaysan yihiin qab Soomaalina uu jiro qabkii Soomaalina uu u xubsiibtay qab Africanism pan Africanism waxaan gaarnay in wadamadii u baahnaa in la xoreeyo inaan gacan siino oo hadda marka wadamadaas qaarkood aad aragtaan waxay xasuustaan Soomaalidii hore inkastoo wax kasta oo Soomaaliya laga maqlo ay tahay negative haddana wali waxa ku sawiran Soomaalidii qabka lahayd Soomaalidii xoog lahayd Soomaalidii soo gurman jirtay Soomaalidii codkooda la maqli jiray u hiilin jiray Afrikada kale ee waalahooda ah runtii wali magaceena waa dhaqan yahay 30 sano wax waa naga halaabeen 30 sano naga halaabay jidkii ay faleen yaan ka leexanay waxaan damacnay inaan jid kale aadno aan moodnay inuu ka fiican yahay waxaan rabnaa dhalinyarada hadda joogta inay uga daydaan SYL hadda 30 sano waqtina aan ahayn dawlad la'aan waqtina institutionskeenu ay jilicsanaayeen sababta ay tahayna in wadaniyadii ay yaraatay midnimadii dadka aysan u sameeyeen macno weyn dawladnimadii aan helnayna ay noogu darsoontay corruption waa xaqiiqo haddaadan mid ahayn midnimo lahayn waa lagu soo dhexgeli sidii waagaas naftigeeda ee loo soo dhexgalayay waa lagu soo dhexgeli waana la kala qaybin waana laga shaqaysanaya waana lagu xukumaya maxaa yeelay dee albaabadaada iyo darshadaha waa furan yihiin cid walba soo galaysa
oo ka adeeganaysa gurigaaga. waxa kaliya aan taas uga hortagi karnaa waxay tahay in midnimada Soomaali ay ku dadaasho. midnimadana waxa ku dadaali kartaa adigoo qabyaalada iyo qabiilka oo ah waxa ummadda kala qaybiya ka fogaada. markaas waxa tahay wadani dalkiisa jecel, dalkiisa u diiday ceeb, raadinaya inuu magaciisa uu soo celiyo iyo sharafkiisa soo celiyo, meeshii adduunka kaga jiray shalayna uu dib ugu noqdo. arrinta kalena ay tahay oo loo baahan yahay naftigeeda inaan ka feejignaano arrimaha musuqmaasuqa oo iyada naftigeeda ah waxa runtii na ragaadiyay oo dhibaatooyinka waaweyn dowladnimadeena u geystay. maxaa yeelay faqrigu kama foga qabyaaladda, faqrigu kama foga corruptionka. intaas hadaa heshidna dowlad adag ma helaysid. wax walbana aasaas waxa u ah in dowladdu ay tahay dowlad nadiif ah oo maxaan ku raahdaa daacada inay tahay. daacadu waxay ka tahay inay dadka u xaq soorto oo cadaalad u samayso. oo corruptionka waxaa ka mid ah qayb ahaan in aadan qofna si gaar ah ugu eexan hadday tahay qabiil iyo hadday tahay saaxiibtinimo gaar ah, oo qof walba xuquuqdiisa uu helo, oo qof walba uusan isku halaynin inuu qof kale heeb ahaan uusan u raadsan, uu isku kalsoonaado. waxa laga raba ay tahay criteria waxyaabaha la isku qaato inay caddahay oo qofkaasi uu marayo jidkaas marayo wixii ilaahay uu ka siiyana uu iimaansanayo oo amaanada ku qabo. intaasna madaxda kaliya lagama rabo, qof walba laga rabaa inuu ku baraarugsantahay. marka intaasoo idil waxa weeye waa calaamadihii aan ku soo aragnay inaan helnay dowlad SYL ay base u ahayd oo dimuqraadi ah. waxay ku shaqaysana inaan raacno aan uga dayanno. haddii jidkaas aan ka lunnay aan hore ugu soconno waxa xaqiiqo ah ma soo noqonayno. maxaa yeelay qaabka aan qaadanay oo ah qofkii inuu ka tago wadaniyadii, inuu ka tago Soomaalinimadii, inuusan macno u yeelin midnimadii, in dowladdaas ay noqoto dowlad fawda ah oo dee qofku wuxuu rabo uu iska yeelayo. hadduu qabiilisti yahayna qabiil u isticmaalayo, hadduu yahay nin aanan waxba u naxayna diiranaya meesha wuxuu ka qaadan kara ka qaadanaya, oo aanan fahamsanayn mas-uuliyadda iyo waajibaadka saaran ee muwaadinimo uusan aaminsanayn. waxaa weeye waktiga iyo safarku waa nagu dheeraan. marka dhalinyarada hadda joogta waxaan leeyahay wax ka barta dhalinyaradii idinka horreysay. aad arkaysaan aqoontooda waxba yaan laga hadlin. anu waxaan aaminsanahay inay naga aqoon badnaayeen oo visionaries ay ahaayeen, ay naga aragti fogaayeen yaan aaminsanahay. aniga yaan aaminsanahay. maxaa yeelay waxay qabteen 30 sano wax ku qaban la'nahay. marka waqti waa naga lumay, laakiin waa isdaba qaban karnaa. waxa weeye waa dhalinyarada waxaan la hadlayo, iyagay ka go'an tahay inay wax dhisaan oo horumar ka shaqeeyaan. haddii ay positive tahay, hadday positive yihiin, hadday negative yihiinna hadda waa soo aragnay dhalinyaro wax burburisa, waa soo aragnay kuwa hadda wax burburinaya oo dee al-shabaabka ah aan aragnaa. marka inaan qaadanno wixii hore noogu shaqeeyey, aan wax ka baranno oo aan uga dayanno. waxaan taas ahayn oo Soomaali horumar ku gaaraysa ma jirto. waxaan taas ahayn oo dowladnimo adag oo xoog leh aan ku gaarayna ma laha. taas waxaan ahayn dimuqraadiyad dhab ah ku heli mayno. marka 13 kaas iyo howlwadeenadooda iyo horseedkii leegada waxa weeye aan mar walba xasuusnaano, aan uga dayanno wax alla wixii ay sameeyeen oo wanaagsanaa. waa idin salaamay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.